بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ولا ليال أدونك ميل أدك جوجتان با وحن هودا دين صومرين يا سلام آدي آد غالي قارهان تيفيغان قرنك قيبتيسا waddanka Canada magaalada Toronto ayaan si gooni ah aan hawada salaan ugu marinayaa oo igu marti qaaday anigoo marti ah. ama mawduuca aan doonayo inaan idin la wadaago waa mawduucaadii aad u macaan, waa mawduucaadii aad u qiimo badan, waa mawduuc qalbigaygu aad ugu faraxsan yahay markii aan ka hadlayo. maxaa yeelay waa mawduuc ummadayda khuseeya, ummadayda Soomaaliyeed ayuu khuseeyaa. waa mawduuc khuseeya ragga waaweyn iyo dumarka iyo siyaasiyiinta iyo maalqabeennada iyo culummada iyo ducaadda iyo qofka shaqaalaha ah, midka ugu sarreeya iyo midka ugu hooseeya. mawduuc khuseeya ayaan doonayaa inaan maanta idiin soo bandhigo biidnillaahi tabaaraka wa tacaala. mawduuca talow magicii maxay kula tahay mawduuca maanta aan ka hadli doono? waa mawduuc qalbigaaga xidhiidh la leh, oo indhahaaga xidhiidh la leh, oo dhagahaaga xidhiidh la leh, oo jirkaaga xidhiidh la leh, oo cumrigaaga xidhiidh la leh, oo liibaantaada xidhiidh la leh, sacaadadaada xidhiidh la leh, farxaddaada xidhiidh la leh. mawduuca waxaa la yidhahdaa sideen oo u helaa lamaano wanaagsan, sideen u noqon karaa lamaano ku nool raaxo adduunyada, aakharana biidni illaahi tabaaraka wa tacaala jannada isku gala. mawduuca waxaan doonayaa inaan qaab ooga hadlo dhowr qodobo inaan ooga hadlo. aan doonayo inaan soo khulaaseeyo. isku day marka dhegaystow inaad aad iila socoto, inay ku anfacdo ayaan rajaynaya biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. awalan, qodobka koobaad, lamaanuhu waxaa la doonayaa inay si wanaagsan isu doortaan. qofka reer baadiyihii goorta uu doonayo inuu xoolo u sahmiyo ama reerka u sahmiyo, yacni wuxuu u raadiyaa meel degaan leh oo aan qaniin lahayn, oo aan abaar ahayn, oo aan oomano ahayn. wuxuu degaan oga raadiyaa reerkiisa, waayo waa jecel yahay, xoolihiisa, waayo waa jecel yahay. meel raaxo badan oo biyo leh ayuu u raadiyaa. maxaad u malaynaysaa marka? lamaanuhu waa mustaqbalkii, waa cumrigooda inta ka hadhay siday u wada noolaan lahaayeen. idan sahan baan u baahannahay qodobka koowaad. saasuu nabigeennuna baray sala allahu calayhi wasalama. haweenka 4 nooc baa loo guursadaa, 4 qaab. qurux rag baa ku doorta, war quruxdu way dhammaani. xoolo rag baa ku doorta, war xooluhu way dhammaani. qoys wanaagsan bay ka dhalatay, in la colloobaaba laga yaabaa. laakiin midda diinta la dooro. qodob gooni ana waan oga hadli doonaa haddii alla yidhaahdo. gabadhuna waxaan leenahay ragga waxaa lagu doortaa diin iyo akhlaaq. nabigeena calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuh. hadday ragow idin yimaadaan dad akhlaaq iyo diin leh, gabdhihiinna ha u diidina. waa reer hebel ha ugu diidina, waxba ma haysto ha ugu diidina. diinta iyo akhlaaqdu ayadaa xoolo ah, ayadaa farwo ah, ayadaa raaxo ah. qodob baan kaga hadli doonaa mar kale insha allah haddii alla yidhaahdo. qodobka horta waa qodobka koobaad oo raaxada guriga ka qayb qaadanaya, oo anna waan sahmiyey, adiguna waa sahmisay. idan dhul dooxa ah oo degaan leh, oo aan qaniin lahayn, oo aan colaad lahayn, oo biyo leh, oo barwaaqo leh, oo roobka uu korka samada kaga keenay, dhulkina uu biyihii aqbalay, kadibna doog iyo daaq, dad iyo duunyo ay ku doogsadaan soo saaray, ayaan u guuraynaa aniga adiga. haddaba waan israacaynaa, ogow. halkaasaan geedi u nahay, ogow. waayo waa soo sahmisay, anigana waan soo sahmiyey. qodobka labaad oo muhiimka ah waa annadar. waa in labada qof waa inuu midba midka kale iska fiiriyo. maxaa yeelay nabigeenna wuxuuna barayaa sala allahu calayhi wa aalihi wasalama aragtidaasi inay noqon karto aragtida noloshu ay ku daa'imi karto, si uusan qofka kale markii guriga loogu keeno uusan oola yaabin, oo uusan u dhihin nacam
arrinka waa muhiim ogaada in lays eego wejiga qofka kale wejigiisa eego oo horta uu ku qanco. halkaa waxaa iigu jira baab la yidhahdo baabu shukaansi iyo baab la yidhahdo baabu xodxodasho. si khaldan baa hadda wax loo shukaansadaa, si khaldan baa wax loo xodxotaa, been baa inta badan laysu sheegaa. walidaalika ayaa hadhowta waxaa dhici doonta qodob hadda ka hor aan ka hadloo la yidhaahdo saa kuuma haysanin, saa kuuma malaynaynin. wiilkii wuxuu leeyahay markuu gabadha shukaansanayo, annagu geesiyiin baan nahay, maalqabeenna ayaanu nahay, boqorriyo ugaasyaan ka soo jeednaa, dadka dhan baabana yaqaana mid dhow iyo mid dheer, gacantayadu way iska furantao dumarka waxbaba ooma xisaabno, waan ku kallarayni oo waan ku casayni oo faa waan ku siini oo bunni baan kaa dhigi, qof saa u taagan oo cajaa'ib badan baan kaa dhigi. gabadhuna waxay leedahay aniga maxaad iga taqaanaa, waxaanu dad hooyo marwa'a baa i dhashay, aabba la yaqaana ayaa i dhalay, gabadh waxaan ahay adduunka ma u malaynayo gabadh iga gaarisan inay adduunka jiri doonto. cuntadayda aad cunto, cuntada aad cuni doonto waxaad ka shikin doontaa talow ma sokor baa lagu daray, ma sonkor baa lagu daray, ma malab baa lagu daray ayaad ka shikin doontaa. waaba nala yaqaanaaba annaga. hase yeeshee markii laysu imaado oo gurigii layskugu imaado si kale ayaa la noqdaa. idan shukaansiga yaan been laga sheegin ee run iyo xaqiiqaha laga sheego. qodobka kale oo raaxada lamaanaha aan u bixinay waa assamcu waataaca, waa labada qof inay ismaqlaan. alrijaalu qawaamuun cala annisaa, ninku asagaa oday ah, asagaa hoggaanka haya, gaadhiga hal darawal baa wada, diyaaradda maxaa liha markabka. waxaad ogaataan ilaahayga abuuray koonkan, gabarh yahay ku abuuray, ninkana abuuray, dabeicaddiinana kala yaqaana, asagaa ninka hoggaanka u dhiibay. maxaa hoggaanka loogu dhiibay? reerku inay raaxadiisu ay sii daa'imto. waa ilaa haweenku way caatifo badan yihiin. laba mid weeye, in laguu dhiibi lahaa iyo in asaga loo dhiibo iyo in laydiin wada dhiibo. suurtagal ma in laydiin wada dhiibo. haddii qof loo dhiibi lahaa rabbi baa u doortay, xakiim weeye, asagana garanaya meesha ku habboon. idan assamcu wataaca, gabadhu marka waa inay zawjkeeda ateecdo. ninka laftiisu ragga qaar baa khalad ka fahma, yacni ma aha macnaheedu haweenka inaan la maqal. haweenka qodob baan kaga hadli doonaa, sida loo wada tashanayo ee guriga looga wada hadlayo, go'aanka sida loo qaadanayo gadaal baan kaga hadli doonaa. laakiin ma doonaysaan qoys wanaagsan inaad noqotaan, usra saciida inaad noqotaan, lamaano wanaagsan inaad noqotaan, maasha allah ma doonaysaan? waa inaad is ateecdaan, waa inaad ismaqashaan, waa inaad is ixtiraamtaan. qodob baan kaga hadli doonaa isagana ixtiraamka. idan assamcu waataaca, khaasatan haweenaydu inay ninkeeda u hoggaansanto waxaan macsi ahayn. saasuuna nebi moxamedna baray sal slam. laba nin isma qabi karaan, laba nin isma qabi karaan. waxa isqabi karaa waa lab iyo dhadig. saasuuna ilaahay noogu talagalay tabaaraka wa tacaala. gabadhu marka waa inay dowr kaa garato assamcu waataaca. qodobka shanaad oo raaxada guurka lamaanaha lagu gaadho waa alibtisaamatu walkalimatu tayiba. maxaa kuu diiday? muusood guryaheenna waxa ka maqan wey, in laysu dhool la caddeeyo. horta ma og tahay inay sadaqo tahay? ibtisaamadu waa sadaqa. wallahi ajir baa lagaaga qoraya, ilaahay agtiisaa lagaaga qoraya. ciddaad u qoslaysa waayo waa midda, waa gabadha dumar oo dhan intaad dhex martay aad tidhi adiga qurux waa adiga, sharaf waa adiga, indhahayga midda u ron waa adiga, hadalkayga midda u macaan waa adiga, naftayda middaan ku aaminay waa adiga, jirkayga middaan ku aaminay waa adiga, reerkayga middaan oga soo tegay waa adiga. yaa waa qofkaad u qoslayso? waa ninka intaad ragoo dhan soo dhex martay aad tidhi adiga raganimo adigay kugu dhan tahay. ninkaa qurux badan oo kaa halyeysan oo kaa sharaf badan oo kaa raganimo badan, dumar oo dhan baan kaaga soo dhex baxay, reerkanagii baan kaaga soo tegey, hooye macaan baan kaaga soo tegey. idan labadiinna xaq isu leh inaad isu muusotaan ood isu qosashaan, weliba muusood run ahoo dhab ah. sidoo kale muusoodka waxaa dheer alkalimatu alxulwa, kelimada macaan. xabiibtii in badan oo ragga iyo dumarkeenna ka mida isma dhahaan,
raggu waxay raba inay dhahaan warawa tii carruurta dhashay war tii awey maxaa la yidhahdaa awey tii sidan ahayd awey islaantii reerkan ahayd awey yaa akhi maxaa kuu diiday inaad dhahdo awey saaxiibtay awey sidiiqdaydii awey xabiibtaydii yaa caa'ish buu nabigu ku dhihi jira caaisha magac oola bax haweenaydaada ma garan sir baan rabaa inaan kuu sheega maanta waayo mafaatiix badan baan bixinaynaa maanta ninka ka faa'idaysta ballan waxaad arki doontaa inaad noolal cajaa'iba ku noolaato laakiin hal iga ballan qaad ina allaha laa yugayiru maa biqawmin xataa yugayiruu maa bianfusihim inaad isbeddesho ayaa lagaa doonaya adugu marka noloshaada bedel oo ibtisaamada la imow kelimada macaanna la imow kelimada macaan magac oola bax xaaskaaga ayna cid kale kuu aqoonin yaa magac inaad oola baxdo marka ay magacaa maqasho ay farxayso gabadhya ninkaaga magac oola bax oo u bixi markuu maqlo uu farxayo carruurtu markay maqlaan ay dareemayaan inaad isjeceshihiin carruurtu markay maqlaan ay dareemayaan inaad isku soo dhowaateen carruurtu markay maqlaan ay leeyihiin allah yaa aniga tolow aabbahay oo kale ma heli doonaa ay gabadhi leedahay ninka i guursan doona tolow aabbahay oo kale ma noqon doonaa ha wiilkii uu leeyahay allah tolow aniga hooyaday oo kale gabadh u dhiganta ma heli doonaa fartu dhexda uu ka qaniinaya soo cajaa'ib ma aha waa waxyaa badan weye idan kelimada macaan iyo hadalka macaan iyo ibtisaamka iyo dhoolla caddayntu waana sadaqa quluubtiinana way isku soo dhowaanaysaa qodobka lixaad ashukr horta shukri ilaahay baa leh oo mahad ilaahay baa leh laakiin nabigeenna dhegayso sala allahu alay wasalama man laa yashkur innaas laa yashkur illaah qofka aan bini aadamka wanaagga u sameeyey aan u mahad celinin rabbiga abuurtayna uma mahad celiyo allahu akbar u fiirso seena oogu mahad celinaynin shukran waad mahadsan tahay way maanta guryaheennu yacni guryaheennu waxyaabahay la dumeen waxaa ka mid a yacni in kelimadaa la waayo waad mahadsan tahay yacni guriga u fiirso tusaalaan ku siinayaa ninkan tusaale gabadhaan rabaa ninka inaan tusaale gabadha u siiyo mathalan ninkii baa maanta baxay aan ku hormariyo gabadha kadibna gabadhii gurigay kuu hagaajisay allahu akbar guri nadiifa bay kuu diyaarisay sariir cajaa'ib badan bay kuu diyaarisay lidaraja hadduu gurigaa daksi soo galo 6 biloodoo xadhiga bay u jaraysaa daksiga guriga carafta idgoonka ayadaa ka daran quruxdan kaga hadli doonaaye cuntay jikaday kuu gashay qiiq baa ku baxay cuntadii bay isu dheelitiraysay basasha bahaaraadka cusbada wixii oo dhan saliidda yaynan caloosh ku xanuunin yuusa ku jiranin daawo ku dar caafimaad waxaasoo dhan bay isu dheelitiraysay qudaartii adduunkii kalluunkii hilibkii maxaa la mooskii adduun oo dhan bay isu dheelatirtay mar alle markay soo gasho aad soo gasho adigu oo alaabtaa laguu dhigo ood aragto gurigii oo quruxdiisa aad la yaabi gabadhi ood moodo midhaha hohobka la yidhaahdo guduudka oo adigay saa kugu isku diyaarisay ragga qaar baan ogeyn moogtahay markaasaa cuntadii laguu soo dhigay shukran ma dhihi laaday waxaan maanaad ii diyaarisay oo maanaa jika ii gashay yaa oo ma aniga dartay intaas oo saacadoo musqusha ugu jirtay shukran kelimada waa cajiib ninka marwada kaa dhigay ee guriga ku fadhiisiiyey yaa boqoradda kaa dhigay melikadda kaa dhigay yaa xoolihiisoo dhan ku siiyey sharaftaa kuu yeelay gabdhaha kale kaa sara mariyey carruurtaa wan wanaagsan ilaahay kaa siiyey eed jeceshahay shukran intaa ma dhihi weyday idan reerka wanaagsan sacaadadu waxay ku dhammaystirmayso waa kelimatu shukran waad mahadsan tahay zawji alghaali wa zawjati alxabiiba waad mahadsan tahay qodobka kale oo toddobaad asabru doonaysaa qoys wanaagsan ma doonaysa inaad raaxo ku noolaato asabru allahu akbar horta in lasu sabro oo ma waxaad guursatay malaa'ig soo maada guursanin bashar soo maada guursanin insaan
soo ma ogid nabigeenu inuu yidhi sal ly salama kullu bnu aadama khataa haye soo ibni aadam oo dhan ma gafo nacam wuu gafaa weliba waxaan kuu sheegi waxa idinka dhexeeya wax walba idinka dhexeeya marka hadduu wax walba idinka dhexeeyo dee waxbaa khaldamaya caqligii baa idinka dhexeeya maskaxdii baa idinka dhexaysa tabcan xoolihii baa idinka dhexeeya gogoshii baa idinka dhexaysa musqushii baa idinka dhexaysa qaraabadii baa idinka dhexaysa carruurtii baa idinka dhexaysa sariirtii baa idinka dhexaysa shahwadii baa idinka dhexaysa candhuuftaa idinka dhexaysa jirhkiinna iyo dhididkiinna idinka dhexeeya ma waxaad leedahay mustaqbalkii baa idinka dhexeeye dadka intaa wax isku darsaday isma qaniini karaan maya wa ismaan dhaafi karaan oo wa isqaniini karaan oo guurku ma aha roog guduudan oo laysu goglo mana aha ubax iyo wuruud ma aha oo keli aha yacni guurku wuxuu leeyahay xanuuno iyo abaaro iyo cudurro iyo faqri iyo colaad iyo dhibaato iyo ismaandhaaf iyo is-afgarad waa iyo ayuu leh idan ma doonaysaan qoys wanaagsan usra saciida raaxa leh lamaano raaxa leh ma doonaysaan isu sabra sabarkuna ilaahay wuxuu gaadhsiiyey darajo weyn inamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab xisaab la'aan baaba la siiyaa maalinta qiyaamo hal tusaale oo cajaa'iba labadiina qabsada gabadh la yidhaah laba tusaalo zawjo iyo zawj idinka siiyo ma maqasheen saxaabi abu talxa la yidhahdo iyo gabadha la yidhaahdo umu sulaym radia allahu tacaala canhuma wiilkoodii oo mayd ah bay aroos ahaayeen ilaa daraja sabarka intaa dhan ay umu sulaym tidhi caryaa ninkayga u sheega inuu wiilkaygii geeriyooday allahu akbar waa gabdheheenna salaan haali a baan u dirayaa gabdhaha soomaaliyeed meel walbay adduunka ka joogaan maxaa yeelay gabdhaha soomaaliyeed qiimo iyo sharaf bay leeyihiin xaaladda ummadda muslimiinta soomaaliyeed maraysana qayb weyn bay ka qaateen jazaahuna allahu khayran waxaanse doonaynaa faraskana usha ugu sii dhufanaynaa inay sii dheereeyaan sow ma aha haa inaad sii dheeraysaan baa la doonayaa umu sulaym wiilkeedii oo meyda bay aroos gashay nacam aroos bay gashay sabarku meeshu ka gaadhay waatuba gabadha awooddaa way isqurxisay qurux meesha ugu dambayso jikaday gashay cunto nin aroosa loo sameeyey samaysay wiilkeediina waa meyd abu talxa yimid albaabkuu soo furay assalaamu calaykum ka warran wiilkii hadda unbuu ugu dhadhaqaaq yar yahay beenta way iska ilaalinaysaa abu talxa inuu wax fahmana ma doonayso waa uu farxay way soo dhoweysay cuntadii cashadii bay siisay allahu akbar cuntadii cashadii ayay siisay kadibna maxaa dhacay xaaladda iyo arrinta dhex marta nin iyo xaaskii baa dhex martay ina waa faraxsan yahay sabarka intaa dhan weeye midda aanu doonayno labada qof inay isu sabraan sabarku marka qiimo badan buu leeyahay sacaado iyo liibaan ma doonaysaan lamaanaha muslimiinta ahow asila labada qoys ee idinka dhexeeya xidhiidhiya waxaad fiirisaa wiilkii ama zawjkii oo ku dhahaya gabadha yaa aabbaan wacay waa aabbaheed hooyaan wacay waa hooyadeed lacag baan u diray hooyadaa iyo aabbaha kadibna hooyadii iyo aabbihii intay soo wacaan gabadha ay ku dhahaan hebel baa maantana soo wacayo lacagtaa noo sodo waad mahadsan tihiin intee in leg bay gabadhaa farxaysaa intee in leg bay ku soo dhowaynaysaa limaadaa halka ila fiiriya soo ayada ma jeclid gabadhya soo ninka ma jeclid waan ogahay inaad dihi haa waan jeclahay wiilyo soo gabadha ma jeclid haa waan ogahay inaad dihi waan jeclahay idan hooyadii kuu dhashay wiilkan aad jeceshahay iyo hooyadii kuu dhashay iyo aabbihii kuu dhalay gabadhan aad jeceshahay in la jeclaado ma aha haa in la jeclaado weeye sodohda iyo sodonka sodonka iyo sodohda in la jeclaado waayo haddaan gabadhaydan xaaskan jeclahay hadda ayaga ilaahay adduunyada sabab iiga dhigay tabaaraka wa tacaala idan ma doonaysaa sacaado
ma doonaysaan liibaan mid walba midka kale ha xidhiidhiyo qoyskiisa iyo qaraabadiisa. qodobka sagaalaad kaasi kii sideedaad ba. qodobka sagaalaad asidq, run ku wada dhaqma. daacad ma taqaanaan? haddaad doonaysaan lamaano raaxa badan inaad noqotaan oo isku raaxaysataan, daacad isu noqda. khayaanadu ilaahay ma ogolo, nabi moxamed ma ogolo sala allahu alay wasalam. reeraheenna waxyaabaha inta badan burburiya waxaa ka mid a khayaanada. sidqi ku dhaqma oo run ku dhaqma oo daacad ku dhaqma. yacni gabadhan daacad kula dhaqan, hadal daacada iyo ficil daacad ah iyo dhaqan daacad ah iyo naxariis daacad ah iyo xubbi daacad ay kaa tahay iyo mawaddo kula dhaqan. war gabarh yahay ninkaaga kula dhaqan run iyo daacadnimo. haddii qodobkaa laga tago reero badan ayaa burburaa. qodobka kale alixtiraam, alixtiraamu almutabaadal. alla qodobkan qiimo badana, alla qodobkan macaan badana, alla qodobkan weynaa qof ka fahma. yacni waa maxay alixtiraam? labada qof midba mid kale waa inuu ixtiraamo, waa inuu naftiisa ka dooro, waa inuu walaalkiisa u dooro. inama almu'minuuna ikhwa, alla saasuu leeyahy tabaaraka wa tacaala. mu'miniintu ayagaa walaalo ah. marka dadka walaalahaasoo aduu ma soo gelaysid. dadka intooda badan ilaa man raxima rabu lcibaad, walaalnimada la sheegayaba ayaga tirada uguma jirto. markay meelaha wax laga wacdinayo, xataa wadaadada in badan oo ka mid a markay meelaha wax ka wacdinayaan masaajidada, inama almu'minuuna ikhwa, islaantiisu kuma jirta day? nacam, islaantaadaa ku jirta. fa aslixuu bayna akhawaykum, islaantaadaa ku jirta. almu'minu almuslimu akhu lmuslim, islaantaadaa ku jirta. laa yadlimuhu, islaantaadaa ku jirta. ninkaagaa ku jira. idan labada isqabta xuquuqdii walaalnimaday isku leeyihin oo xuquuqdii islaamnimaday isku leeyihiin. soo saas ma aha? bala. alixtiraam xagga hadalka, xagga carabka, xagga ficilka, xagga dhaqanka, xagga qalbiga, xagga gogosha, xagga isu dooridda. alixtiraam. ya laba qof aan is ixtiraamaynin oo gabadha garan weyda ninkan qiimuhu ugu fadhiyo, ninka aan garanaynin gabadhan qiimahay ugu fadhido, haddee ixtiraam dhexdooda ma yaal. ixtiraam waa qodob muhiima wey. alixtiraam wataqdiir, bimacnaa ninku waa inuu u arko xaaskiisa hadiyad iyo hibe ilaahay uu siiyey inay tahay. khayr allah, ilaahay baan ku shukrinayaa, ilaahayga ii kaa dooray. ya salaam, ka waran hadduu ninku xaaskiisa saas ku dhaho, ilaahay baan ku shukrinayaa, ilaahayga adiga ii kaa dooray ee dumar iiga kaa dooray. maxaa yeelay ilaahay waa ijecel yahay. ilaahay inuu ijecel yahay waxaan ku garanayaa aduuba zawjo iga kaa dhigay. ka waran gabadhii ninkii hadduu arko xaaska oo tukanayso, maa sha allah, oo maxaad tukanaysay saacaddan oo kale maba la tukade, oo marka ay dhahdo waxaan u tukayay ma garanaysaa? haa, ilaahay baan u mahad celinayay. ya salaam. marka uu yidhaahdo oo maxaa nugu soo biray oo nicmo ah, oo ay dhahdo markaa ma taqaanaa xabiibi, waxaan soo xusuustay qiimahaad iigu fadhido iyo sharaftaad iigu fadhido iyo meesha aad i gaarsiisay. yaa markaan eego maba qaadi karo, waa shay culus, maba qadarin karo. saa daraaddeed intaan soo weysaystay yaan ilaahay mahad u celiyey. alayh salaam. ninkaasi wuxuu hayo o dhan buu ku siin. dahab cusub buu kuu soo gadi, dhabannaduu kaa dhunkani, wuxuu kaa dhigayaa marwo midda ugu sarraysa. nacam, alixtiraam almutabaadal waltaqdiir. nacam, labadaa waa inay meesha i taallo. qodobka tobnaad, fahmu lmas-uuliya. labada qof waa inay mas-uuliyadda dhexdooda taallaa, waa inay fahmaan allah maxaa ka weyn. ilaahay tabaaraka wa tacaala qur'aankiisa meeqa aayadood buu mas-uuliyadda ragga iyo dumarkaba ku sheegay. rasuulu lhudaa calayhi asalaatu wassalaam meeqa axaadiid buu noogu sharxay nabigu sala allahu alayhi waaalih wasalam. ninku xaqee buu leeyahay, gabadhu xuquuq bay leedahay, ninkuna xaq xuquuq buu leeyahay. taayib, xuquuqdaa waa in la fahmo, xuquuqdaa waa inay qalbiga gasho oo in la fahmo. maxaa ka macno ah? waxaa ka macno ah gabadhu xaqa lagu leeyahay inay bixiso, xaqay leedahayna inay dalbato. ninku xaqa lagu leeyahay inuu bixiyo, xaqa uu xaaska ku leeyahay inuu dalbado. taas waa qodob muhiima wey. ninka waxaa lagu leeyahay xuquuq aad u weyn. waxaa lagu leeyahay marashadii,
wixii la xidhan lahaa meeshii la degi lahaa maskankii waxaa lagu leeyahay nafaqadii wixii la cuni lahaa o dhan daawadii waxbarashadii dee waad og tihiin alrijaalu qawaamuun ninka mas-uuliyad baa saaran ballan adag buu galay qur-aanku ilahay ku sheegay tabaraka wa tacala gabadha waxaa laga rabaa itaacadii iyo ninka inay ateecdo oy cuntadii iyo gurigii soo waajibaadka o dhan sariirtii waa mawduuc dheer waaye oo aan daqaa'iqa lagu soo koobi karin walidaalika qodobada waxaan u doortay inaan qodob qodob u tilmaamo si aan faa'iido badan u gaadho daqaa'iqan soo socda oona wax badanna oga tegin laakiin qofka caaqilka isagu inuu ziyaadsado oo kororsadaan rabaa maxaan rabaa inaan dhaho fahmu lmas-uuliya labada qof waa inay mas-uuliyadda mid walba mid kale ka saaran waa inuu fahmaa ina dareenku waa muhiime dareenku waa muhiim haddaad orado adu waxaaga soo qaado orod noo soo gad cunto dhex hore nooga soo gad haye biitsa hore nooga soo qabo haye maqaaxida wax nooga soo qabo si gabdho badan maanta ay sameeyaan ayagoo mas-uuliyaddii cuntadaba ka cararaya haddee waad aragteen reero badan baa ku dumay ilaa man raxima rabu lcibaad tabaaraka wa tacaala qodobka 11 waa qodob muhiima fahmu nafsiyaad baa la yidhaahdaa labada qof ee lamaanaha ah raaxa doonaya inay raaxo ku noolaadaan waa inay mid walba midka kale uu barto waxa uu yahay horta kaale aan isbaranne warqad u dhiib waxaad dadaa bal waxaad ku soo qortaa waxaad jeceshahay su-aal baan rabaa malaayiinta dhegaysan doonta kelimadan ama dhegaysanaysa su-aal baan rabaa inaan weydiiyo lamaanaha ayaan rabaa inaan su-aal weydiiyo su-aasha inaan iska weydiiyo ma aha iska weydiinhaye jawaab baan rabaa inaan u helno jawaabtaana waa arrin ku xidhan liibaanta iyo sacaadada raaxada daakhiliga ah iyo midka banaanka u soo bixi doono mustaqbalka weli ma isweydiiseen war maxaad jeceshahay oo maxaad neceb tahay oo maxaa ku dhiba oo maxaad ku faraxdaa oo maxaad ka cadhootaa oo maxaad ku degtaa ii soo qor in alla inta qodob ee aad jeceshahay si aan kuu siiyo inta qodob eed neceb tahay si aan kaaga ilaaliyo bal u fiirsada hal tusaale idinka siinaysa u fahamtaan labada qof markay intaa isku waafaqaan hadduu ninku u yidhaahdo anigu waxaa iyo waxaasa iga xanaajiya goortaan se xanaaqo waxaan jeclay intaan baxo inaan ragga la soo sheekaysto masaajidada iyo meelaha la iskugu imaadayo maqaaxiyaha intaan asxaabtayda la soo sheekaysto hadhowto waxaad arki doontaa anigoo hadiyo kuu wada yaa shukulaato anigoo kuu wada ubax anigoo kuu wada oo faraxsan baan kuu imaanayaa daawadeydii waa intaa haddaan saa la isku ogaanin ninkii markuu baxo gabadhi waxay leedahay ha anaad iga tegaysaa soomo albaabka istaagaysaa kulleetay ku dhegaysaa imaqashii waan ku furay maya igu dar waan kugu daray 3 maya 9 iga dhig way dhacday ha khatar sooma laakiin ka war hadday dayn lahayd ma dhici lahaa dhibka waa maya gabadhi baa waxay tiraan haddaan cadhoodo waan isduuduubaa qolka jiifkaan galaa bustaan isku dadaa laylama hadlo haye ninka saasaa la doonaya ka war hadduu dhaho maxaa isla duuduubaysaa istaag lama rabo waa in la dejiyo jawiga idan fahmu nafsiyaad waa midda naga maqan 30 sanaa la isqabaa lamana garanayo waxa laga cadhoodo xisaabtii sanadkii koobaad baa xata al'aan taalla waagaan jabadaa deganayn waagaan gurigaa deganaa xaafadda howlwadaag waagaan deganayn madiine waagaan deganayn xamarjaja waagaan deganayn boosaaso waagaan u guurnay halkaasaa la leeyahay haddee faraweyna 30 sano ka hor bay ahayde dikru ljafa bacda safa jafa wax la soo dhaafay oo laga soo heshiiyey qofka soo celiya asagaa cudurka iyo daandaansiga wada iyo boogta inuu danqiyo waa in waxaa la xidho baabkaas fahmu nafsiyaad runtii waa qodob in lagu istaaga aad iyo aad u mudan weyn saa daraad baa waxaa la yidhahdaa 3 marxalo un baa la maraa qoyska wanaagsan 1 atacaaruf hortaan isbaranno waxaad dhibsanaysa ii sheeg si aan kaaga ilaaliyo qodobka labaadna ata'aaluf waa la isku soo dhawaadaa waa la isku soo dhawaadaa waa la isku soo durkaa ya waa la isku soo dhawaadaa qodobka saddexaana atakaatuf garbahaba la isqabsadaa saddexa makaa habaabi saddexdaa makaa dhumi atacaaruf asbaranno barasho wanaagsan kadibna ata'aaluf wataqaarub waa la isku soo dhawaanayaa maxaa hadhay atakaatuf marka dambe in garbaha la isqabsado labada qof ay isqabsadaan waxaan arkaa waqtigu aad igu socda waxaan rabaa inaan isku soo aruuriyo qodobo badan aan ka taga biidni illaahi tabaaraka wa tacaala
waxaa ka mid a qoyska wanaagsan goorta ay wada hadlayaan inay isdhegaystaan. qodobka waa muhiim. qoysas badan bay ka maqan tahay. qoysas badan baa burka iyo qaylada iska soo qaata. laa bar horta ha la isdhegaysto. alinsaat alsamcu walinsaat, horta in la isdhegaysto waa qodob muhiima. soo garamaysaan xadiidkii dheeraa umu zarc ee fii saxiix bukhaari, caaisha inay nabiga oga sheekaysay 11 dumara. zawji cayaaya wuu dhegaysanaya nabig sal slam. zawji almasu masu arnab wuu dhegaysanayaa. idaa akala lafa wuu dhegaysanayaa. zawji maalig wamaa maalig wuu dhegaysanayaa. qiso dheer 11 dumar ah oo waktigii jaahiliyii sheekaysanaya ayay caaisha usoo bilowday rasuululhudaa sala allahu alay wasalam. markaasuu aad u dhegaysan. markuu dhegaystay ba wuxuu yidhi anigu sida uu abu zarcin umu zarcin u ahaa baan ku ahay. de waa qisada waktigeeda u baahane haddii waktina la siiyo biidni illahi tabaaraka watacaala in ummadda loo sharxo arrin mudan weeye, laakiin kuma furayo ayuu markaa ku yidhi. marka in la is dhegayso. qodobka kale almadxu, labada qof inay is ammaanaan. allahu akbar. ninkaaga oo qurux badan markaa arta inaad dhahdo horta adiga iyo dayaxa kiinee qurux badan. gabadha uu ku yidhaahdo horta adiga iyo dayaxa yaa qurux badan. marka qaarkood shaki waxaa iga galaa kiina quruxdu badan maxaa kaa qosol qurux badan, oo maxaa kaa ilka cadcad, oo maxaa kaa qurux badan, oo maxaa kaa tima wanaagsan, oo maxaa kaa labis wanaagsan. ya allah, ninku markuu xaalkiisa ku dhaho ballan baan kuu qaadaya inay 1 sano kugu shaqayso. kelimadaas ayada ahaa tiri kashtu inay ka dhammaato. dumarku ammaanta way jecel yihiin, ammaanta runta way jecel yihiin, ragguna way jecel yihiin ammaanta. laakiin anagu dadka banaanka joogaan ammaanaa. haweenka deriska abaa la ammaanaa, ragga deriska abaa la ammaanaa. laakiin labada isqabta isuma quudhaan. shukran iyo ammaan isuma quudhaan. haddee ma waktigaan ka gaadhaa? waktigu waa dheer yahay. mid walba adilo aad u dheer ayay leedahay. satrulcawra yani kitmaanu sir baa ujeedaa. kitmaanu siri, labada qof ee sacaado doonaya waa inay sirta qariyaan. ya allah, maanta guryaheena maxaa burburiya? maanta guryaheena maxaa fasaadka ku riday? iska fiiri. waa inaad sirta qarisaa. ya amat allah, addoonta ilaahayey, ilaahay dartii baan kuu jeclay soo maa? addoonka ilaahayow, ilaahay dartii baan kuu jeclay. waxaan doonaynaa reer wanaagsan oo nadiif ah inay noo dhismaan. ummadda soomaaliyeed ee siyaasiyan iyo iqtisaadiyan iyo thaqaafiyan iyo caskariyan iyo intaba u burburtay, waxaan doonaynaa inay bulshada iyo ay ka soo dhisanto ayaanu doonaynaa. oo reero wan wanaagsan oo ilaahay yaqaana inay ka soo baxaan. sirta guriga qari, oo sirta sariirta qari, oo magacaa jiriye dhegtan wax kugu sheegaya i dhegayso. may maqlaysaa? dhegtan wax kugu sheegayaaye marka adiga ninkaaga wax idin dhex maraan gacmo geel jiro hoos baa loo dhaqaaye soo saan u hadlaya hadda ma arkaysid. aamus. kadibna ninkaaga wada hadla kaalay dheh. laakiin marka la wada hadlayo ma garanaysaa? waa markay carruurtu seexdaan. haye miiska waa in lasoo dhigo qudaar, tufaax iyo moos iyo liin iyo ubax iyo biyo cad. adiguna hohobta aan sheegay iska soo dhig. ninkuna sidoo kale markaa weeye marka la doonayo maxay? in wixii sir ah hoos la iskugu sheego. laakiin aad banaanka u bixiso dad halow ma maqashay ninkii sidii u yidhi nakii ma garan saas igu yidhi. kadibna mid nolosha ku fashilantay ayaa waxay leedahay anaa daawadiisa ku aqaan, saasaa la dhahaa oo saasaa la dhahaa oo saasaa la dhahaa. bug fantashiruu fi lard. soo maaha? idan waa in la asturo. maxaa la yidhahdaa? sirta guriga waa in la qariyaa. qodobkana ila dhegaysta. tajdiid ulxayaa. allahu akbar. allah qodobkan fiicana oo macaana oo wanaagsana. allah qodobkan yaa wakti fiican siiya. waa maxay? war nolosha bedela. nolosha waxay u baahan tahay hadba in la bedelo. daaha waa la bedelaa, waad aragteen. fadhiga waa la bedela. israafka ma ogeli. waxaan ka hadlaya israaf iyo xadgudub ma ah. laakiin sida daaha loo bedelo, dahabka loo bedelo, duruucda loo bedelo, fadhiga loo bedelo, waa in hadalka loo bedelo, oo labiska loo bedelo, oo muusoodka iyo quruxda loo bedelo, oo gogosha loo bedelo. ya allah, gogosha waa in loo bedelo. hadba noo cusub. waa in gogosha waa in mar banaanka laga soo cunteeya. waa in mar cuntada la isla kariyaa. waa in mar la orotamaa sidii nabiga caaisha ay samayn jireen sala allahu alay wasalam. waa in mar safar la wada aadaa. ya allah, waa in hawe la soo wada qaataa. waxyaalaha soomaalida ay ku rafaadsan waxaa ka mid a nolol hal meel taagan, bariis baasto. siduu nin sheekhu soomaaliya yidhi
markay dumarku gogosha ka calaacaleen oy dhaheen ragga soomaaliyeed gogosha kuma fiicno ayaa nin baa u jawaabo wuxuu yidhi oo maxay gogosha ugu fiicnaan karaan raggu rag aad beriis iyo baaso suugo badan aad maalin walba siinaysaan calool weyn iyo lugo dhuudhuuban minjo dhuudhuuban soo labadaa ma soo bax soomaalida hore waxay u tidhi nin walba intuu cunuu ciidamiyaa soo maaha war dumarow raggiinna nafaqaysta raggiinna cunto wanaagsan siiya oo qudaar siiya oo kalluun siiya oo geedaha mataqaanaa nafaqada iyo hormuunka ziyaadada ka dhigaya siiya oo mooraalka u dhisa oo isu qurxiya markaad arooska aadaysaanba duruuc cajiib oo dubay laga keenay baa laisku qurxiyaayo intaasoo lacaga lagu soo gaday isqurxiya raggana sidoo kale ayaa laga doonayaaye war maalin kasta uun ha soo taagnaanine xaaskaaga hawada raaci oo hawada u raac oo safar la gal oo bannaan ka soo cunteeya mararka qaarkood oo isla sheekaysta oo mararka qaarkood meelaha fiifiican ee badda isla aada yaa oo jawiga bedela jawiga in la bedelaa waxaa la yidhaha tajdiid alxayaati azawjiya yacni rotiiniga haddaad maanta dhanun hal nooc haddaad barato noloshu ma soconayso qodob kale alqudwa qoyska wanaagsan waa qoys lagu daydo farta lagu fiiqo qoyska xagga cibaadada xagga taacada ismaqalka kala dambaynta akhlaaqda deganaanshaha maxaa la yidhaha dacwada iyo diinta deeqsinimada waxtarka dadka fartaa laydinku fiiqaya in laydinka cuudubilaysta maaha oo deriska le war kuwan yaana soo dejiyey derisnimadiina waa in lagu farxaa waa qodob muhiima oo jiddan asagana sidoo kale waxaa jira wax la yidhaha shucuuru daakhiliy qoyska wanaagsan gudaha waxa ku jira iyo dareenka hoos ku jira waa in moolka iyo biyaha iyo badda iyo webiga iyo ceelka biyaha hoostooda waa inay iska arki karaan labada qof weligaa ma dabaalatay dadka dabaasha aadka u yaqaana ma aragteen sida kalluunka u dabaashaan iyo xaaska moogtiin intay badda galaan biyaha galaan ayaa indhaha biyaha lagu kala qaadaa qofka kalaad arkaysaa iyo xaaskaad arkaysaa kalluunkaad arkaysaa laakiin waa ninka dabaasha yaqaana labada isqabtee lamaanaha ah waa inay noqdaan laba qof oo dabaasha si fiican u yaqaan oo biyaha hoostooda iska arkaya maxaan u jeedaa quluubta ilaahay baa taalacan kara laakiin waa inaad xaaskaagu waxay jeceshahay iyo waxa ay qalbigeeda ku jiri kara waa inaad sawiran karto kadibna intaad maalinka dambe suuqa isu raacdaan aad aragto ayadoo wax wanaagsan fiirinaysa adu laakiin ishaad kala socotaa ya maalin dambe intaa usoo doomarto ayaad u keenaysaa markaasi waxay ku leedahay ay oo niyo yaa kuu sheegay shayga sidaan u rabay haddaad ogta dumarkuna raggu haddii aad uma yaqaanaan intooda badane arrimahaas oo kale qodob kale waxaan leeyahay waktiga ay caydhsanaya alhadaaya labaanuhu waa kuwa wax isu hadiyeeya ya waa kuwa wax isu hadiyeeya hadiyadu qasab ma aha inay qiimo badan inay leedahay lacag badan iyo $100 in laga soo bixiyo ma aha iga rumaysta tajrubeeya xabad xanjo ah oo afka carfisa xabad maxaa la yidhaahdaa shukur ood ogtahay xaaskaagu inay jeceshahay wax yaroo ubax ah yaa wax yaroo maxaa la yidhahdaa qiimo badan shay guriga is leedahay ayadu u wanaagsan yahay silsilad yar oon xataa dahab ahayn maalinta aad u keento xaaskaagu siday u farxayso bal nin walba bal ila tijaabiya arrintaa yaa qalin i bug maysataa bal intaa qodobkaa qorato bal arrintaas samee waxaad arki doontaa xayaato raaxo noolal isu soo dhowaansho waxaadan weligaa xaaskaaga ama gabadhu ninkeeda ku arkin walidaalika baa nabi sal slam xadiis sanadkiisa maxaa la yidhahdaa insha allahu xasana tahaadow taxaabu culamada qaar ba xadidka wax ka sheega sanadkiisa tahaadow taxaabu nabigana ficilkiisana saasuu ahaa sala allahu alayh waalihi wasalam xataa nabigu khadiijo saaxiibadeed ayuu u hadiyen jiray nabiga calayhi asalaatu wassalaam qodobka kale athiq ya allah kalsooni labada qof waa inay isku kalsoonaadaan ragga qaar baa masayr badanoo halkan yaa soo maray dumarka qaar baa masayrkoodu meel jira aad u adag ayaad la socotay ay barfuunkaasoo carfay muxuu yahay waa labada qof inay is-aaminaan waa labada qof waa inay isku kalsoonaadaan labada qof waa inay mid walba midka kale noloshiisa u siiyo laba jidh laakiin hal ruuxa waa inay yeeshaan kalsoonidu waa muhiim kalsoonidu waa raaxo kalsoonidu waa deganaan kalsoonidu waa iطmi'inaan kalsoonidu waa xasilooni kalsoonidu waa xayaato
labada qof waa inay isku kalsoonaadaan afiqa ayaa leeyahay alqanaaca qodobka kale allahu akbar alla qodobkan weyna oo qiimo badana waa inaad isku qanacdaan ninkaaga waa inaad ku qanacdo horta siduu alla u abuuray iyo wuxuu alle kugu soo dhiibay iyo siduu kuu maamulo waa inaad ku qanacsan tahay gabadhu ninku waa inuu xaaskiisa ku qanacsan yahay alqanaaca adduunyadu waa laga tegayaa qiimo male laguma qanco adduunyada xoolo la qurux wax ma qanciso wax qanciya waa iimaan iyo shakhsiyadda jiritaanka qofka iyo dareenka nuxurka qofka ayaa lagu qancaa walidaalika baa saciid ibnu caamir aljumaxi radia allahu tacala canhu ardaah asagoo ximis meesha la yidhaahdo madax ka ah ayaa cumar bin khataab baa wuxuu yidhi bal ha la ii soo raadiyo maxaa la yidhaahdaa fuqarada muslimiinta cumar bin khataab baa markaa fuqaradii baa lagu soo daray cumar bin khataab baa marka lacag u soo diray inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun islaantii baa soo bodo waxay tidhi ma madaxweynihii muslimiintaa la dilay wax ka weyn ma muslimiintii baa dagaal lagu jebiyey wax ka weyn ma garanayo adduunyaa soo gashay gurigayga si ay aakhiradaydana u fasahaadiso aakhiradeenna aniyo adigana noo kala kaxayso naga saar bay tiri qanaaca baa la yidhahdaa ashuura labada qof inay wada tashadaan nabiga siiradiisa ad akhrida sala allah alay wasalam xudaybiya yaa badbaadiyey saxaabada cadaab iyo ciqaab ku soo degi lahaa umu salama zawjada nabiga sala allahu alayhi wasalam umu salamay saxaabadii amarkii bay qaadan la'yihin war timaha xiirta xoolahana qowraca adigu bilow yaa rasuul allah ya adigu bilow ayay ku tiri waxaan ku khatimayaa biidni illaah oo wax lagu khatimaba ah fii suurati aruum aayadda 21 waxaan aayadda u sheegaya raqamkeeda waa aayaddu weynankay leedahay qaala tabaaraka wa tacaala wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaajan litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawaddatan wa raxma allah tabaaraka wa tacaala wuxuu doonayaa inay labaanuhu isjeclaadaan isuna naxariistaan waxaan ku soo aruurinayaa jacaylkiinu waa inuu noqdo sidii geed yar oo la tallaalay kadibna la waraabiyey oo jacaylka iyo intaan soo sheegayna oo dhan lagu waraabiyey marka dambena xididadiisu ay dhulka galeen haye dhulka markay galeen geedkiina uu kor u baxay markuu u baxay laamo waaweyn u bixiyey laamihii waaweynaana ay midho bixiyeen allahu akbar midhaha markay bixiyeen maxaa dhacay midhihii dadkii baa cunaya xoolihii baa cunaya wuxuu noqonayaa geed la harsanayo oo lagu raaxaysto indhihii buu u roon yahay haye geedku indhihii buu u roon yahay haye oo cuntadii baa laga cunayaa nacam geedkaasoo kale inaad noqotaan oo beer iyo biyo intaba uu dhex yaallo reerka wanaagsan saas ayaa la doonayaa inay u dhaqmaan fa as'alu allah ilaahay waxaan weydiisanayaa qoysaskeenna inuu qoys wanaagsan uu ka dhigo isku daya inaad arrimaha dhaqan gelisaan ballan waxaa igu ah insha allah inaad usra saciida aad noqotaan intaan kaga kulmayna xalaqadatan ku xigta waxaa idinkaga tegayaa astawdicukum allah wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا